kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale muuqaalo cusub ee arrimaha dhacdooyinka xiisaha leh oo hadaan kala idinku soo gudbino warbixinada xiisaha leh ee laga qoray arrimaha koonfurta iyo dhacdooyinka xiisaha leh dib u milicsiga u baahan kuwaas oo asnahan markale daawadaashina waa la wadaagi kartiin muuqaalkan gaarka ah wuxuu gaar u yahay atiishada Kiara Advani isagoo halgankeeda usoo gashay qaybaha Bollywoodka filmada ee kasoo muuqatay waxyaabaha kaga dhigan tahay halgankeeda usoo gashay ayaan ku qaadaa dhigi doonaa mawduucan xigtan ayaa 2019 waxay gacanta ku dhigtay laba mashruuc oo guulaha waaweyn gaareen sidoo kalena Kiara ayaa muddo 5 sano ah waxay ku qaadatay in magaceeda ay saldhigto waraysi xigtan siisay BBC Asia Network ayaa dhinacyo badan ee kaga hadashay waxaana wax laga weydiiyay sida ay nolosheeda isku badashay sanadihii dambe iyo waxa ay ku jawaabtay shaqo aqliyasan ugu dambeyn way saldhigatay waxaa jirtay maalmo 5 sano ka hor oo aan ahaa sida maxaan qabtaa sidaan u buuxiyaa jadwalkayga maalinlaha ah waxaan u baahnaa waxaan joogteeyo waxaan sidoo kale u baahnaa waxaan halkeeda ka sii dhaqaajiyo maxaa yeelay ma ahayn shaqo 5 maalin iyo 9 saacadood oo toos ah maalmo qaar waa 3 saac oo shaqo ah ama 5 saac oo shaqo ah laakiin hadda marka ay ugu jirtahay waa 12 saacadood waana jeclahay xigtan ayaa la weydiiyay halgankeeda sida ay sheegtay uu ahaa wax aan laga hadli karin oo cadaalad dar ah haddaba maxay ula jeedaa maanta oo kale baraha bulshada qof walba wax walba uu og yahay oo kugu saabsan adiga markaad ka hadlayso shay waa lagu xukumaa sidaas daraadeed haddii aan soo dhigo sawir aan asxaabta iskuulkayga kula jiro oo aan dhaho halgankayga waa halkii aan ka soo bilaabay waxa lagu dhahaa sidee ku dhacday waxay saaxiib la tahay Isha Ambani anagoo dhan waxa dhahay maxaa jira ma aniga iyada ah taas oo shaqada nolosheeda wax kama galin iyo waxa aan maalin sameeyo laakiin taasi waa caadi oo kama cabanayo waayo halgankayga waxba kama galin Kiara Advani doorkeeda filmka Kabirsin ee 2019 la daawado wuxuu ahaa mid lagu kala qaybsamay daawadayaasha ayaana ku kala qaybsamay inkastoo blockbuster oo noqday haddana wuxuu lahaa mushkulooyin iyo in dumarka filmkaasi lagu liiday waxaana xigta la weydiiyay in taasi ay ahayd khibrad ay ka dhaxashay guul iyo guul daraba ee filmka Kabirsin iyo inay dadka ku xukumiyeen moraalka ee filmka ku jishay iyo moraalkeeda mid isku dhigma waxay ku jawaabtay hawa ahayd ereyga aad u adeegsatay ee guul iyo guul daraba dhabtii wuxuu ahaa mid leegu soo koobay waxaan u maleynayaa inuu ahaa sidaasi waay uu qurux badnaa meel walba aan tago quraxdaas ayaan helayay markaad aragto sida ay dadka u naqdiyeen filmka waa mid shakhsiyadeed doorkan waxaan waqti gelinayay muddo 3 bilood ah ay sheegtay atrishada ugu dambeyn Kiara Advani waxay ka hadashay filmka kale ee guusha gaara ee Good News is in la shaqeysay Kareena Kapoor inay ahayd riya ay yaranteeda ku riyoon jirtay markii aan joognay goobta duubista waxaan dhahay wow tani waa caruurnimada riyadeeda iyo wax walba Kareena Kapoor waxaan xasuustaa inay ahayd qof aan yaranteeda markii aan soo weynaanay aan jeclaa inaan ag istaago iyo inaan isla duubno hees waxay ahayd waqtigeyga maaqan kuwa kale waxay u ahayd atishadan ay waxaad misal ligatay qaybaha Bollywoodka iyadoo koonfurta ay ka soo gashay filmadeeda ugu dambeeyay inta badan waxay noqdeen filmo guuleysan sida filmka Bulbulaya 2 ee 2022 la daawaday filmka Sadhya Prem Ki Katha atishadan ay filmoon dhowr ah u diyaarsan sida filmka Game Changer iyo filmooyin kale oo xiiso leh oo atishadan ay ka soo muuqan doonto Kiara Advani waa mid kamid ah tirshooyinka ugu guulaha badan ee Bollywoodka iyadoo sidoo kale magac ka dhex samaystay waana xaas oo u dhaxda jilaaga Sidharth Malhotra kaas oo guurkooda oo si farxad leh ku dhacay muddo sanado ah ayana xiriirkooda dhaxeeyay iyagoona isjeclaadeen xilliga ay wada duubayeen filmka qaybo OTT lagu soo fasaxay Shirsha kaas oo noqday film guuleystay sidoo kalena magac labadooda ku wada heleen abaalmarin badan ay ku wada qaateen wuxuuna ahaa mid ay labadan filmkaasi isku fahmeen intaan ku soo kabina muuqaalkan oo gaar ku ah tirshada Kiara Advani ee aan kaga hadlaynay halgankeedii nolosha ee film jelista iyo waxyaabaha kaga dhigneed iyo sida ay ku cabirtay dareenkeeda ku aadan halganka ee soo martay iyo soo kale kuusha sida ay ida ugu dhiganto intaan ku soo koobina dad bixinaa ka shaqeynaa soo soo kala saxaabtiin la wadaaga wad kuma sinta alaabsan oo dhiirgelisana muuqaalada oo daawataan kan kiis xigna sidaas iyo nabadino